bismillaahi raxmaani raxiim. halkan waxaan ka salaamayaa walaalihii soomaaliyeed meel kastoo joogaan dal iyo dibad. waxaa idinku salaamayaa salaanta muslimka qaaliga ah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. meeshaad iga daawanaysaan ama iga dhageysanaysaan waa khadiija aadam official. channelka waa channelkiina kusoo dhawaada gacmo furan qalbi nadiif ah. kusoo dhawaad walaalihey, waadna ku mahadsantihiin subscribe-ki, like, share iyo dhahdeen. shukran aan idin leeyahay, kheyr badan allah idin siiyo insha allah. mahad celintiinana kama daali doono insha allah. walaalihii soomaaliyeed waxaa inoo socotay qisadii la magac baxday culeyska fudeed baa ka dambeeya. markii xoogay dib haddii dabeecad xumi iyo dib haddaa inoo yara celiyo dabeecadii inay eber ahayd, dabeecad laan inaa ahaay oo dad aan la heshiin la-aay cid kasta. markaas kadib adiga ilaahay maamahad iyo shukri iska leh. waxaan helnay meel quraal saar ah ayaa naloo sheegay, kadib waa ballansanay. wax badan waxaan sugnaba waan helnay. markii dambe waa ballantii aan ku tagnay. ballantii markaan ku tagnay subaxii u horreeyay waxaa la dhahay horta waxaa la buuxinaa fooma lagu keenayaa. foomka waxaa ku qoran wixii cudurka meesha wax laga daaweynaya dadka ku qoran. mar hore waxaa lagu dhahaya waxaa ku qoran wixii adiga aad tahayna tig baa saaraysaa, haddaad waxaas ahaydna waad qaldaysaa warqada lagu keena. marka waxaa la dhahay maxaa laga bilaabay ma lagu ceejiyaa. haddii ceejid wax badan ay socotay waa la ceejiyaa waaye. waxaa kaloo lahay meel adoo sariirta saaran oo hurdaysid meel aa kasoo dhacday ma u maleysaa, markaad aad naxdidna sariirtaaba saaran tahay. saas ma kugu dhacdaa? way igu dhacdaa, saasaa noqdaa. waxaa kaloo lidhahay xaajigaaga ma neceb tahay ama ciyaalkaaga ma neceb tahay. marka ani taas cudur ma u maleyneyninba. maya iska dha waa necbaay, zaaid baan u necbaay, laakiin haddee waa cudurba u maleyneynin. haddana waa iska qarsaday, laakiin ceeb waa jiray. isaga bis ma ahan, dadka dhanaan iska necbaay. inta qur-aanka akhrisoo dhanaan necbaay. qur-aanka wixii akhrinay markii dambe aan fahmay adig waxaas dadka aan necbahay waxaa u badan dadka qur-aanka akhrinaya. ilaahay u fududeeye, anu wada fududeey maasha allah. marka waxaa kaloo la dhahay xanuunkaaga isbitaal ma loo waayey? waa loo waayey aan dhahnay. isbitaal waa loo waayey xanuunkeyga. waxaa kaloo la su-aalay xanuun meel iskaga kaa dhegin oo xanuunka kaa daynayna ma jirtaa? way jirtaa. wixii aad tahayn bahaad dhahaysaa, waxaad ahaynna dee qalada saaraysaa. baan dhahnay. kadib waxaa lahay ma quurisaa? xaajigaa soo buduxudhe waa quurisaayo. quuri hadda isma ogi mogtahay quurada inay xanuun tahayna ma ogi, qofka jiifana inuu quurina isma ogi. sooma ogidin walaalayaalo. saas inaa ogtiin fahamsanahay. marka waa quurisaayo. waxay u quurisaayo dhahay magaalo yar oo waay wax kasta kusoo xaroonayaan. sooma kala cuduuna. mar geel baa ciyaaya, mar ari a yiiraaye, mar gaariyaa ka dhex yiiraaye, mar gaari baa yiiraaye, mar lo' baa yeerayso, mar adiga wixii adduunka saaran oo dhan soo kala cod ma aan. saasay u quurisaa. aniga maba is ogiibsama. haye taasantigaa la saaray. waxaa kaloo la su-aalay su-aalo badan aa liweydi su-aalay haduwaab iyo kale ilaawey. waxaa kaloo la su-aalay adig su-aalihii intaasay ahaayeen oo maleynaa. marka warqadii waa la gudbiyey, waan iska soo noqonay. maantaas qur-aankii ma gelin.
warqadii sheeqa loo gudbiyay. Sheeqana lama arkaayo, nambara lagu galaa qolkiisa, qolka uu kasoo akhriyaa qur-aanka. Yani qolal badan waaye, korna dad baa joogo, hoosna dad baa joogo. marka nambarkaas adoo haynin qolkiisa ma arkaysa, laakiin kaamiradu kaala soconaa qofkii xanuunsan oo markaas boodboodaayo oo yani zaa'id loo haayo, meeshaas ka arkaa loo geeya. markaas waxaa la dhahay marka waa iska soo laabanay, gurigaan iska imaanay. maalintii dambaan aadnay, subaxdii salaad subax markii laga baxay waa la aadaa meesha, aroortiyaa la galaa. waan tagnay, qur-aankiiaan la galay. marka dadka dhan nin kasta marxamkiisu wataa, gabar kasta marxamkeeda la socda, walaalkeed ama ninkeeda ama abtigeed ama wiilkeeda, qof kasta qofkii marxamku aa ku raacay. marxam la-aan lama tago sidii darteed. marka meeshiaan galnay qur-aanka, dadka dhan waa qayliya markii qur-aanka la bilaabay. weynaa la qaylinaa, waa ogtiin meel qur-aan saar qof kasta uu fahmi karaa. marka aan dadka qaylinaya kuma jirin, laakiin waa fadhin waaye kolba dhinaca uu fadhiistaa, inta u fadhiisa xagga u fadhiisa, adii kala goysadii xibnaha laga galay, ma fadhin karo dabcaan. marka kolba yani dhinac saan ugu fadhiisanay, saan u dhahay. marka dambe qur-aanka waa dhammaaday, waa laga soo dareeraa. qur-aanka markuu dhamaado, nin kasta qofkii nambar la siiyey ma ahana, inta kale way baxayaan. subax kasta saasaa marka aan qur-aankii u gelaynay. 3 beri markaan galnay nambarna la siiyey. nambarkii markaan helnay, sheeqa hadii waad u lugoysa meesha, wax badanaad fadhinaysaa. sheeqii aan adiga xilli waqti dambaan helnay, waana loo yeeray, waa u galnay. waxaa la yidhi marka sheeqii baa u galnay. waxaa la dhahay marka warqadii hore u haystaa, markaas waa i wareystay sidii maalin horeeto ii wareysanayay oo kale, wadana ii wareystay. markaas wuxuu dhahay markuu iga wareystay, wixii dhan iga wareystay, wuxuu dhahay daawo isoo siiyo. daawo oo wuxuu dhahay baaritaan waayo daawadan, guriga markaad tagtid oo cunto cuntid, daawadan soo laq, daawadan laq uu dhahay. bas daawadii baan guriga imaanay, cuntadii aan cunay. cuntadii markaan cunay kabacdi daawadii aan laqay. daawadii markaan laqay waxay noqotay yani waxaa bilaabay mantag culeys badan baa iga soo baxo. yani aan la mantag xoog badan ma soo matagay, laakiin meeshaan kuma tagay aniga ma fahmaynin. waxaa la rabay in beeshin ama loo dhigo oo la arko wixii ku jiro. aniga marka waxaas ma fahansaneyn. qof mantag qabto iska orday musqush kusoo mantagan baan ahaa. adiga horey gadaal baan noqday. marka waaga markuu bariyey, madowgii tv-gu la damiye u ekaay. yaa tv-ga la damiyey, saan waa tv la damiye soma, madowgii saas ahaa. marka xoogaa yar iftiin baa soo galay. marka dadkii xaafadii joogo dhan way arkeen, alla wejigii waa iftiimi xoogaa. marka waan ku noqonay haddana 3 beri oo kale markaan joognay ayaa maxaa la dhihi jiray aan u galnay. qur-aankii horta waa ku soconay. horta dhaqdhaqaaqigii faraha badnaayo oon la fadhin la-aa xoogay waan degay. marka saxaabteyda waxaa waa intaasaan kusoo gabagabeynayaa. waa 10 daqiiqo inay ka badata ma rabo, dadka inay ku dhibtoodaan ma jeceli. marka waa fadhigii aan fadhin waysanaay oon tabcaanka aan la gaarayay waa ka fiicnaaday alxamdulilah. inkastoo weli dhinaca bidaxda uu xanuunayo markaas, oo weli xanuunkii xoogay gaaskii badnaayna waa damay, oo aad u malaynaysa dab la shiday wuu damay. marka mantagii iyo wixii markay imaadeen waa u damay dabkii badnaayo oo wadnaa iga shidnaayo. marka madowgiina wax yar waa soo iftiimay.
marka akhyaarta intaasaan kusoo gabagabeynayaa 10 daqiiqo insha allah in lagu dhibtooda marweyn xoogaa insha allah tan dambaa soo gabagabeyn doonaa haddii ilaahay yidhaaho marka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.